السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارت قيمها يقايها بدن هل كان جلس عطان وبوجا أحمد كذي مجاعيونا وأحمد كذي هداي وحين لو داعي إن أنا نيسو جود بين دونو برنامج لده إن أو أماريك كمبيوتر أو لو مجعابه ubax muxuu yahay muxuu ka saacidayaa sidee ayaan uga faa'iideysan kartaa taas ayaan rabaa inaan oga hadlo sida aad la socotid internetka waxaa ku jira dad Soomaali ah ayaa ku jira kuwaas oo soo qoro qoraalo dhaadheer qoraaladaasina ay yihiin kuwa qiimo badan waxna laga faa'iideysan karo laakiin bulshada inta akhrisato ayaa kooban amaba yar marka barnaamijkan wuxuu xal u yahay arintaas ayuu yahay qofka wax akhrinayana adiga ma ahan waxaa ku akhrin doona barnaamij kombiyuutar tusaale ahaan hadda fiir sidoo kale Cabdullaahi Nuur Colombo wuxuu ku jiraa dadka qoraalada qiimaha badan soo qoro kale ayuu ku jiraa barnaamijkan oo kale 20 bishii Janaayo soo qoray oo qoraalkan aan ka wada halkaas ayuu ka bilowdaa sidaan uu socdaa ilaa iyo dhankaas ayuu tagayaa waxyaabo fara badan axaadiis iyo waxyaabo kale ku jiraan Daawud Cali qof la hayaa ayaa qoray dadka akhristay way kooban yihiin dadka share gareeyay tiradooda meesha ka sii arki kartaa waxyaabo maala yacni waxa arkay dad fara badan oo akhrinaya ama share gareynaya ama ka falcelinaya maxaa dhacay maxaa jira markaas dhaahidna waxay ka dhigan tahay in dadka Soomaaliyeed aysan jeclaan qoraalada dhaadheer ee la akhrinayo hadda barnaamijkii arintaas ka xalin lahaa ee ku akhrin lahaa af Soomaalina ku akhrin lahaa يعني si fudud aadna ku raaxaysan lahayd ayaan ku fahansiinayaa halkaana kugu sharaxayaa sanadkii hadda dhamaanaya 2021 bishii ugu dambeysay December waxay sheegtay shirkadda Microsoft in ay 16 luqadood ku soo ziyaadisay barnaamijyadeeda 16 kaas luqadood oo ah kuwa is akhrinaya waa barnaamij kombiyuutar oo luqadaha akhrinaya luqadahaasi waxaa kamid ah nasiib wanaag luqadda Soomaaliga ayaa kamid ah luqadda Soomaaliga waxay ku soo dartay marna uu akhrinayo qof nin ah marna ay akhrinayso qof dumar ah mar waxa akhrinaya nin muuse la dhaho marna gabar oo wax la dhaho ayaa akhrinayso qaabkee waa sidee u akhrinaysaa qaab yani waxa soo idil ayaa hadda dhiman waxana rabaa inaan ku fahansiiyo marka koowaad ubax naftirkeeda ayaa ku tusinayna ayadoo akhrinaysa hadda tusaale qoraalkan oo kale bugan waa bug daqiiqada ka hor aan sameeyay wax badan insha Allah ka faa'iido doonta hadduu Ilaahay yira ubax Soomaaliyeed ku qoran qoraal sidaan oo kale hadda aragtay af Soomaaliya ku qoran qoraalka saarta inay akhrisid waa ka caydsan tahay barnaamijkan sidee ayuu qoraal kugu akhrinayaa waa su'aal marka koowaad waxa laga rabaa inaad soo degsatid barnaamijkan la dhaho Edge waa barnaamijkan Microsoftiga website-yada lagu akhristo barnaamijkaas ayaa taleefankaaga ku soo degsanaysaa markaa soo degsatid caadi waa furanaysaa markaa furatid meesha aad wax ku akhrinayo website-ka rabtid meeshaan aad ka galaysaa tusaale hadda qoraalkan oo kale ayaa waxaan doonaynaa in ay ubax noo akhriso qaabkii ayana u akhrinaysaa barnaamij markuu kasaan kugu furaya website-kii aad furatid waxaa taabanaysa saddexdan dhibic ee meesha taalo markaa taabatid kadib sidaana u wadaysaa meeshaan a'da ay ku taalo mujeedaa ee read ku taalo a'daas kaliya ayaa riixaysaa bis sagaal hal toddoba means haddii akhrina dhegeyso adeega ubax faahfaahin magacaygu waa ubax waxaan ahay barnaamij kombiyuutarkaas oo ay shirkadda Microsoft samaysay waxaana dadka iyo adigaba idinka saacidi doonaa qoraalada internetka ku qoran kuwa aadka u dhaadheer iyo kuwa gaagaabanba inaan cod ahaan idinkugu akhriyo weliba si fudud oo aad fahmi karto uma baahnaan doontid xataa adiga inaad akhrisid kaliya aniga ayaad ishidaysaa caadi ayaadna u dhagaysanaysaa qoraalkii oo hadal ahaan aan kugu akhrinayo sidaanoo kale bulshadeena Soomaaliyeed waa kuwa inta ugu badan akhriska aanan ku wanaagsanayn amaba ka qayliya marka ay arkaan qoraal aad u dheer xataa haddii uu yahay mid muhiim ah hadda kadib waxaad adeegsan doontaa ubax ayadaana kuu akhrin doonta wax walba sheekooyin warar maqaalo warbixino iyo xataa gabayo balka waran codkayga si fasiix ah ma u maqashaa si aad fahmi kartid ma u hadlayaa intaas markii laga tagana soo lama dhihi karo ubax waa barnaamij muhiim ah aad baad u mahadsan tahay walaal like comment share post comment as ubax author ubax Soomaaliyeed ku soo dhawow boga like saar wax badan waad ka faa'iidi doontaa insha Allah mahadsanid in badan sagaal means like reblimore markii intaas laga tago Englishka markii akhrinaysa si kale u akhrinay laakiin Soomaali kaliya ayaa loogu talagalay waxyaabo kale aan akhrinayna waxaan leenahay ubax tusaale waxa noo akhrisaa oo kale qoraalkan noo akhri qoraalkan bogga Soomaaliga Jarmal ku yaal oo kale sidii hadaayo kale saddexdan dhibic ayaa taabanaysaa markaa taabatid kadib meeshaan aad ay ku taalo
readka ay ku taalo ayaa riixaysaa ayadaa ku akhrinaysa sagaal waa dhaafin hal kartaa xataa qoraalka Soomaalis published bi hal shan ka soo qaad waad xanuunsan tahay amaba caruur ayaa kaa xanuunsan daawo cayimana inaad farmashiyaha ka soo qabsato ayaad rabtaa mana awoodid oo socod ma geli kartid cid kaloo kuu doonaysana ma jirto sidee ayaad daawo uga helaysaa farmashiyaha waxaad google ku qortaa magaca magaaladaada abote waxyaabo kale aan tijaabinaynaa macnaha in qoraalo kala duwan ayaan tijaabinaynaa tusaale hadda war oo kale hiiraan online oo kale websayada ugu waaweyn ee soomaalida wax laga akhristo caddaan iyo soomaaliba ay ka akhristaan wixii arrimo soomaali ku saabsan waxaan leenahay hiiraan qoraalkan ku qoran noo akhri ayaan leenahay awey hiiraan online tafatirayaasha hiiraan online waxay si wada jir ah isugu raaceen in xildhibaan barkhad jaamac batuun uu noqdo shakhsiga sanadka 2-2-1 ee hiiraan online hol go-aanka hol ee xildhibaan batuun lagu doortay shakhsiga sanadka ayaa ah waddada uu u xaarayo jiilka soo koraaya oo wax badan kaga dayan doono halganka uu u horseeday in uu dhibaatada ka saaro qowmiyadda uu ka soo jeedo oo ay soomaalidu haybsoocaan sidoo kale si aanan caadigeena kugu akhrinayaa taas waa gooni waa war waaye waxaan leenahay waxaa noo akhrisaa warbixin caafimaad noo akhri ayaan dhahaynaa tan oo kale hadda fiiri websitekan Somali doc la dhahayo ay ka buuxaan macluumaad caafimaad cudurrada wixii dhan ku saabsan ay ka buuxaan kaas ayaan waxaan leenahay qoraal ku jira noo akhri Somali Medical Forums waa maxay cagaarshowga maxaase keena cagaarshowgu waa erey xagga caafimaadka loo yaqaano beerka bararsan ee jiran hal nooc oo ka mid ah cagaarshowga waxaa keena jeermiska cudurka dhaliya ee loo yaqaan virus jeermiska cudurkani dhaliya wuxuu dhex galaa jirkaaga kuna keenaa xanuun beerkaaga mararka qaarkood dhibaato ayuu cudurkani u keenaa beerkaaga iyo isaga oo ku yeelan kara caafimaadkaaga saameyn xanuun oo qoto dheer dadka qaarkood ma ogaan karaan inuu hayo cudurku ama waxay ku qaldaan inuu hayo lafo garaac si kastaba ha ahaatee dad ayaa dareemi kara jiro aad u daran lagana yaabaa inay u baahdaan in lagu daaweeyo cisbitaalka sidee ayuu caan u yahay cagaarshowga waxaa lagu cabiray waxay u akhrinee siyaanan caadi ahaan waxaan leenahay markaan waxaa noo akhrisaa qoraal kaftan ah noo akhri ayaan leenahay qoraal kaftan ah sheekooyin qosol badan oo aan caadi ahayn xariif reer mudug ah oo ay labada ilkood oo hore ka maqan yihiin ayaa qof siduu ugu sheekaynayay ku tiri xabiibi waan qoyay markaas buu intuu isu bogay ku yidhi hadalkayga miyaa dareen kugu beeray gabadhii oo su-aashiisa ka jawaabayso ayaa ku tiri maya ee markaad hadlayso caliyaa ka daadanayso 2 sheeko gaaban maseer waxay ka wadaa markaa hadlaysa caliyaa kaa daadanayso qofka soo qoray ayaa kaa daadanayso labadii ka tagay ka daadanayso siduu uu yahay ayaa u akhrisay markii aad barnaamijkan soo degsato oo kale Microsoft-ga waa kan website-da laga booqanayo waa caadiga ah meeshaas waxaa laga yaabaa English iyo waxyaabo kale inuu ku noqdo ayaa laga yaabaa markii aad shidid meeshaan aad ahayd cod ahaan ayaa rabaa website-kiina ay u akhrisid meeshaas aad taabatid uu kuu soo saaro halkan waxaad taabanaysaa meeshaas marka meeshaas taabatid oo kale codadka waa kana waxaasoo luqada ayaa ku jiraan waxaana luqada ayaa ku jiraan dalal fara badan oo ka maqanna way jiraan mahad ilaahay Soomaali waa lagu soo daray sharaf intaas aan noo ah waana ka faa'iideysanaynaa Soomaalihan hadduu ilaahay yiraa sidaas marka u soo wadid ayaa waxaa arkaysaa Muuse in meeshan lagu soo daray ay ahayd nasiib xumo Muuse hadda dhankaana kuma jiro ubax ayaa ku jirta marka waxaa arkaysaa Soomaaliya ayaa arkaysaa kana Soomaaliya arkaysaa Microsoft ubax online ayaa arkaysaa ubax markaas awrixid magacaaga oo la baxeen waxaa laga yaabaa gabadha Soomaaliyeed ee codkan iska leh in ubax la dhaho ama banaanisteeda ubax ay tahay ama ayaga inay jeclaysteen in barnaamijka ubax loo bixiyo kale hal mar waxaan leenahay barnaamijka naftigiisa waxaan leenahay waxaa noo akhrisaa qoraal kale noo akhri ayaan leenahay tusaale qoraal maqaal la qoray oo kale ama maqaal muhiim ah ayaan waxaan leenahay noo akhri sidaan aan dhaho tusaale war dheer qoraalada lagu qoro kale hadda qoraalkan afkeena hooyo ee ku taalo ayaan waxaan leenahay noo akhri mar walba akhri aad leedahay oo kale si fudud inta kaliya riixaysaa website-kii aad booqatay qoraalkii iyo maqaalkii aad rabtaa tegaysaa ama Facebook aad booqatay qoraalkii aad rabtaa tegaysaa kadib meeshaan aadaasaa taabanaysaa riidka ku taalo
waa riixaysaa afkeena hooyo haddii aad taqaan bar maxay salaan ka gadaal ujeedkaygu waxaa weeye iyo webiga fatahaada sameeya marka adeegsiga afka Soomaaliga maanta la eego dhibaatada la dareemi karo waxaa weeye in dad badan oo afka ku shaqeeya sida saxaafadda xafiisyada maamulada dadka bulshadu dhageysato sida madaxda siyaasiyiinta iyo aysan xil weyn iska saarin sida ay afka u adeegsadaan amaba aysan ogeyn in hadalkoodu saxan yahay naxwe qaabkaasuu kugu akhrinayaa yacni si fudud waxaad tagtaa meesha barnaamijyada laga soo degso barnaamijkan Microsoft Edge soo degso oo web browserka markaad soo degsatid caadi website-ka aragta halkaas ku qoro Facebook aragtaa oo kale Facebook naftirkiisa meesha saas ugu qoro marka Facebook sidaas ugu qoro sidoo kale qoraalada uu kuu soo saaro oo kale macal xataa commentiyada iyo akhri ayaa leedahay qoraal uu kuu saaray hadda qoraal dheer meeshan kuma qorno maxamed shubka ayaa qoraalkan soo qoro kale haddaan dhahno noo akhri qoraalku wuxuu ku saabsan ilaa hadda moogi waa iska riixa oo keliya bal noo akhri aan leenahay 9 hal 2 maxamed shubka in talaabadan la waajib yeelo waxay u roon tahay nadaafadda deegaanka ganacsadaha loo adeegayo ciidii ama caradii loo waday ay dabayshu laamiga ku daadisay iyo tan ugu muhiimsan oo ah in indhaheenu ka badqabaan waxyeelada kaga imaan karta ciida dabayshu 4 jiho u qaybisay sidii maantaba na qabsatay waa sheeko dheer marka qaabkaasi kugu akhnaysaa muuse codkiisa nasiib xumo dhankan kuma jirto ubax codkeeda ayaa ku jiro waxaan rajeynayaa hadduu ilaahay yiraa in aad ka faa'iidaysan doontaan ayaan rajeynayaa horta boggan ubax soomaaliyeed ku qoran ayadoo buugaag akhrinayso ayadoo waxyaabo kale akhrinaysa ka maqli doontaan hadduu ilaahay yiraa insha allah marka like saara kusoo dhawaada ubaxna waxa waaye isticmaala barnaamijkaas haddii aad iPhone isticmaashid iyo haddaad telefoonada kale Android-ka aad isticmaashid Samsung iyo wixii lamid ah soo degso Microsoft Edge soo degso kadibna meeshaas kaliya taabanaysaa codka iyo akhriya leedahay telefoonka miiska saaranaysaa kadibna asaaba kuu sheekeynayo intaas kaliya maahan Soomaalida wax qortane ama maqaalaha qoraan ama sheekooyin ha qoraan ama waxyaabo taariikhi ha qoraan waxaa rajeynayaa in ayagana qoraalada soo badin doonaan dadka Soomaaliyeedna barnaamijkan ka faa'iideysan doonaan miyi iyo magaalo meesha joogaan mid aqoon leh qof aan aqoon lahaynba يعني إن أي wax badan dhageysan doonaan xataa haddii markaas waqti ahaan ay akhrin kari waayeen waa Axmed Kediye